maayarka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa ka jawaabay eedeymo musuqmaasuq oo ay u soo jeediyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley. golaha deegaanka waxa runtii aanu bariyahaaba ku howlanay diyaarinta iyo u diyaargarowga miisaaniyadda 2022 miisaaniyaddaas runtii oo waqtigeedu ahaa September inaanu insha Allah taala gudbino intaanaan miisaaniyadda hawsheeda gulin process bay soo martaayo waxay ka soo bilaabantaa in xisaab xidhka ama miisaaniyaddii hore ee lagu shaqeynayay si looga dheegto miisaaniyadda 2022 gacanta lagu hayaano runtii gudida dhaqaalaha ee golaha aan la wadaagno arintaas runtii waxay soo martay duruufo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan ugu dambeynna fadhigii golaha deegaanka ee caadiga ah oo ahaa fadhigii saddexaad baa wuxuu noo bilaabmay 26 bishii 9aad oo noogu talagalay runtii inaan hawsha golahana warbixin kaga siino waxna la isku weydiiyo miisaaniyaddii 2022 loo diyaariyo miisaaniyadda aanu ku shaqeynay 2021 runtii waa miisaaniyad sharci oo golihii deegaanka hore saxeexay ama ansixiyay isla markaana ay dhaqan gelisay wasaaradda arrimaha gudaha xisaab xidhka markii runtii aanu soo galay sideedaba waxa jira waxa lagu shaqeynayaa waa ama miisaaniyaddu waa daras oo sidan imikaba aanu xilligan lagu jiro 2022 u diyaarinano ee dakhligeeda loo ordorasiyo ee kharashkeega loo ordorasiyo ayaa miisaaniyaddana waxa la soo ordorasay 2022 bishii 9aad marka dakhligeegu meelaha qaar uu kordhay waxa laga soo galay dakhligii aanu ku talagalnay dakhli ka badan sidoo kale dakhligu meelaha qaar hoos buu dhacay oo dakhligii aanu ku talagalnay hoos buu uga dhacay intii aanu filanay meelaha qaarna dakhligii aanu suganay sideedii buu soo xirooday sidaas la midaba waxa jira kharashaadkuna waa sidaas la mid ah meelaha qaar kharashka aad ugu talagashay ama loo qoondeeyay kharash ka badan baa loo baahanayaa meelaha qaar kharashku intii in ka yar baa la isticmaalayaa meelaha qaarna kharashku uu isdaboolaya waa dhaqan ay miisaaniyaddu leedahay waxa kaloo jiray arrin technical error oo farsamo percentage miisaaniyaddu ka kooban tahay oo 5% baa loogu talagalay in shaqaaluhu runtii ay ku baxda sanadka la qorsheynayo miisaaniyaddan hadda ku shaqeynanay qoondada runtii kumay fadhiin oo halkii 7 bilyan iyo 500 meelaha lagu fadhiisin lahaa ayaa khalad farsamo wuxuu dhacay 5 bilyan iyo 600 milyan laga dhigo taasi oo keentay faraq 2 bilyan inuu halka ka soo baxo arinta faraqa 2 bilyan ah waxa weeye khalad miisaaniyadeed runtii khalad xisaabeed arinta miisaaniyadda 2021 percentage-ka shaqaalaha ku dhacay dabadeedna qoondadii 12 bilood ahaa in ka yar bay noqonaysaa waxbaan isku weydiinay warbixin xisaabeedka runtii aanu golaha la wadaagnay 8 bilood buu haayo bishii January baanu ka soo bilownay ilaa bishii 8aad arintaas runtii waa arinta hadda inaanu golaha isku afgaran weyno keentay markaanu hor dhignay cadeymaheedii waxeedii garowshiyo way ka bixinayeen hase yeeshee marka dambe golaha la yimaado garowshiyihii wax ka duwan bay la yiminayeen iyadoo ay noo muuqatay runtii inay arintan uga faa'iideysanayaan ujeedooyin siyaasi oo iyagu leeyihiin isla markaana aanay ka run sheegin waxa waaqicee hor yaala taasina ay keentay taymika isafgaran waaga runtii golahu ka yimiday maayarka magaalada Gabiley oo warbaahintu wax ka weydiisay lacagta musuqmaasuq ee ay ku eedeeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ee 7 bilyan ayaa waxa uu kaga jawaabay xubno
lacag badan sheegayo 7 bilyan baa maqan maha runtii dee halkay ku maqan tahay iyaga sheegi doona annagu wax cadeymoon u haynaa ma jirto sidoo kale musuqmaasuq baa dhacay iyo waxyaalo noocaas oo eedeymaabay xubnahaas sheegayeen golaha deegaanku waanu ka xunnahay runtii qofku waxaanu cadeymo u hayn inuu dee bulshada la wadaago oo bulshadii soo dooratay oo tacabkii iyo duruufihii doorasho dee aanu maskaxdooda ka sii bixin qofkuna waxa wanaagsan dee wuxuu sheegayaa inay noqdaan wax dhab oo xaqiiq ku qotama runtii farsamo ahaan iyo mabaadi ahaanba arrintaasi arrin jirta ma aha marka arrintaa waxaan jecelahay runtii dee inay bulshadu sidaa u fahanto aan ula wadaagno xubnaha hadlayay waxaa moodaa weli inay dee campaign oo khayriyooyinkii ololihii iyo runtii ay ka hadlayaan weli campaign ku jira xaqiiqda iyo shaqada taale iyo dee howlahana way kala duwan yihiin waxaa odhan lahaa runtii xaqiiqda kusoo dhawaada dee in ummadda loogu sheekeeyo waxaan jirina ma wanaagsana waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka case universal TV gabilay